السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جماعة عايق واحد لها جامع أحمد إيدلي وعند جنها مقالة الله يراه شفيود يعني بقال الله يو شيء كذا إنك يودي وح مركه ورا عن لا أنا جو وح ونايستنيد إن وقت جيت ورسوله أي وقت أي حق الله هلا قبضه وأن تبلور لكن تام عليه الوحوية أنا وحكومة أنا يتنهي وأنا هاي نين كل مياه مركات بتساوي inaan fawsi lahayn ayaan filaya hase haddii haddii ay noqotay caynka kan oo ay suurto geli weyday kuwa kordhiba xaq u leh komisana xaq u leh ilkana xaq u leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Cabdiqani Cabdalla waxaan taageersanahay arrinka gurtidu go'aamisay waan taageersanahay waan sidii ay ku hagaagi lahayd doorashadu marka wax dadka faraya shacabka Soomaaliland inay ogolaadaan وحيابها قليلة خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا محمد حاج قعيد وحنا نقول أي سنة هاي أنا أي سنة هاي قانكا قرتدا أي مذكرينتا سومالي لان وحنا سلامة يا دحوينها كل هي وزير هذا كلها قرتدا كلها برلمانكا يدمان بأمة سومالي لان يعيد ماذا قلب كسيدة سومالي سدا ينبت قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وحلا هذا عبد الرحمن طاهر قضح. waxaan ka mid ahay odayaasha degan magaalada Shafiil waxaan kaloo ka mid ahay ururkii SNM ee dalkan u soo halgamay dalka wax kasta la isku qabto wax kastaana ha jiraan waxaanu ka digaynaa cid tiraahdo waxba dhacaya waxba kama dhacayaan dalka wanaag baa ka dhacaya arrimahana dhulka ha la dhigo ha laga wada tashado ha la soco wixii khaldan laakiin yaan lagu hanjabin ama cid oranin waxba dhacaya waxba dhici maayaan annaga dalka u maqan annagana ilaashanayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم أنا مجاهد سعيد جبريل حسن waxaan taageersanahay go'aanka guurtida ka soo baxay iyo muddada loo kordhiyay waxqabadka dawladda ayaan taageersanahay waxa weeyaan haddaan nahay anigu waxaan nin reer ceerigaabo wadada ceerigaabo waa dawladdii horeysay ee ku dhacday inay wadada laami dhigto waxaan u aragnaa anagu haddaan noo reer ceerigaabo ciddii qalalaasa waddanka gelisa inay ka soo horjeedo horumarka iyo waddada marka waxaanu leenahay beesha caalamkana waanu taageersanahay madaxweynaha siduu ganafka ugu dhuftay marka waxaanu leenahay xisbiyada mucaaradkuna arrinkaa dejiyaan dadweynahana ayaan la khalkhalgelin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعول مساعدا دقن مقالة شفيل. مركب وجوه الرئيس إلهي بمهد سكره. مرلباتك. وحمهد آد سكره مرلبات إلهي بسكره مرصدحاتك. وحندون يا إن أنك الله أفكار تيدا. كورنتا دور شوينك قولها قرتو كنا واقعين. وحلا قولها قرتو وقولها إن جمودن الشرف وقولها كرامله وقولها إن حرمنا دمانتهم بين جمودن ونمن جسيارة. ودك أنا حق بدن بكليه الله احترامه وح أي حق لهين اللوداي أيان آدي هذا السودوينية سيدو كله كوميشنكو سنجو أن بوجاري كهرية كان حسبية ذا جاري جوان وحاسودن مركل يسوقيو سوماليلاند waxay ummadaha kale kaga horeysaa geeska ama caalamka kaga horeysaa isu tanaasul iyo inay inta godol isugu timaado ka arinsato wixii dhaxmare dhax yaala marka waxa fiican in wada hadalka maanta 20 bisha inta la isu yimaado si fiican loo wada hadlo la isfahmo la isu tanaasulo hadii aan la isu tanaasulin wax weeye adeer dhibaato badan baa imanaysa dadka tacab badan iyo dhib badan baa loo soo maray qofna inuu si fudud ugu ciyaaro kama ogolin raalina ka noqon mayno waana ka soo horjeednaa tootalina mudaharaadadan dhacaya iyo waxaanuna dani ugu jirto ummadda waa la isku dilayaa qof baa ku dhimanaya war xaq laydin kuma laha in intuu soo baxo dadka soo baxaan ardaydii yaryarayd iyo dadkii madax rasaas laga dhaco waayo meeshii dhibaato ay marsi dadkana dad mudaharaad ku bisilmaa waxaan ku soo gabagabaynayaa Soomaaliland midnimadeeda hal ilaaliyo wada jirkay wax ku tahay qofna kaliya waxba noqon maayo waxa ugu dambeyn u mahad celinayaa أنا مدن تيفيجا ياسين إيو أبكر أنا هذه أدوم هذا لنا دمان ومد السومال لأنه سلام يا إذا ما ذكرنا كوجه الريان السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو إبراهيم نوح قموتي marka ugu horeysa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dadka islaamka aan ka salaamayaa marlabaadka shacabka Soomaaliland baan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo marwada koowaad Aamina Jirde ayaan iyana salaamayaa waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa golaha guurtida oo gartay in ay waajibkooda iyo xilkooda sidoo yahay ay u gutaan waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka idinkuna talaabada ay guurtidu qaaday idinkuna ajiiba baan leeyahay Soomaaliland uguma jirto isqabqabsi iyo buuq iyo kala yaac Soomaaliland uguma jirto waxaan kaloo maanta halkan ka salaamayaa waa inaad wax qirtaan ninka gobkii waa ninka wax qira ninka Faysal Cali Waraabe leeyahay gudoomiyaha xisbiga UCID oo muujiyay mas'uulnimaan isagana halkan ka salaamaya waxaan leeyahay dhammaanteen waxaan leeyahay in isku duubnaano aynu midnimada iyo wadajirka aynu ilaalino anigu waxaan ka mid ahaan jiray taageerayaasha xisbiga kulmiye weli aan ahay guddiga kulmiye Shafilo ku jiray markii aanu kulmiye ahayn waxaan u arkaynay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo inuu yahay ninka ku haboon kursiga mar labaad inuu yahay oday u soo halgamay dalka mar saddexaad inuu yahay aqoon-yahan baan u arkaynay dawladani waxa weeyaan dawladii horumarka waa dawladii waxa weeyaan hadii alla iidankeeda leeyahay dadka iyo dalkaba baraarujinaysay koonfurta Soomaaliya iyo dhammaan bajaarka waxaanu dheernahay guurtidaasaynu dheernahay marka waxaanu leenahay inoomadan aha buuq iyo isqabqabsi hal laga waantoobo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa magaca Alle ayaan ku bilaabayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxa weeyaan waxaan aad iyo aad u taageerayaa go'aankii ka soo baxay golaha guurtida ee ay kordhiyeen taasoo ah wax inaga inoo dana because waxa weeyaan wuxuu yiri dagaal baa leeyahay waxaan maqlayaa waxba la huminayaa muxuu ahayd mudaharaadaya jira laakiin waxa weeyaan ninka doonaya inuu madax noqdo hadduu mudaharaad dhigo oo dhibaato ku dhacdo wadanka ka dhacdo isagu markaa ma helayaa jawaabtu waa maya waxaan leenahay isagana Ilaahay ku soo hadeeyo muxuu ahayd waxaad ku fadhidaa nambarkii saddexaad ee dawladda ayaad ku fadhidaa ninka ugu waxa tahay laba lambar baa ka horeeyay maamulka dawladda waxa tahay kii saddexaad baa tahay marka kaagana iimaanso ka kalena iska soo waqtigeeda insha Allah way ku iman doontaa nasiibkaaguna marun weeyaan qofku nasiibkiisa marun buu helaa waxaan oranayaa nasiibkaaga Cabdiraxmaan oo iska sug dalkana ha ugu baaqin dhibaato waynu soo maray waxay tahayna midhaheedii waynu aragnay maantana waxaynu ku jiraa nimco Ilaahay baynu ku jiraa ma sha Allah tabarakallah waxa weeyaan Ilaahay inuu siyaadiyo adigana Ilaahay xaq ha ku garansiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوة سلطان خضر موسى إسماعيل waxaan ka hadlayaa magaalada Shafiil guurtidu go'aanka ay gaadhay waa taageersanahay anigu sida dadku ay u wada taageereen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliland oo meel kasta joogto waxaan soo dhow 18 May baa inagu soo dhow waxaan leeyahay 18 May meel kasta waa in Soomaaliland uga dabaaldegaan mucaarid iyo muxaafid iyo qolo walba ay u dabaaldegto Soomaaliland 18 May annagu Shafiil baan nahay kullee waa ka dabaaldegaynaa hadaan nahay inkastoo aan xusbiga mucaaridada ka mid ahay laakiin waa u dabaaldegaynaa arrimaha kale Soomaaliland ka jira mucaaridada iyo dawladuhu ay isugu yimaadaan dhexdhexaadin arrinka la iskaga yimaado meel dhexdhexaada hal lagu soo dhaweeyo wanaag iyo wada tashi iyo Soomaaliland waxa meel ku soo gaadhay wada tashi iyo in wanaag iyo meel dhexal isugu yimaado marka waxaan leenahay ku soo dhameeya wanaag ku soo dhameeya guul ku soo dhameeya kulli hadaan qurba joogtanahay waxaanu eegaynaa anagu gudaha iyo waxa ka taagan ma jeclaysano marka kulli wanaag uma jecelnahay assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan waxaan salaamayaa shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan salaamayaa dawladda oo min madaxweyne ilaa iyo ka hooseeya dawladdu waa salaamantay xukuumadda Soomaaliland waxaan inta uga gudbayaa dheerayn maya hadalka waxaan leedahay guurtida
waxaynu u doorannay oo aynu haddee beedmaya halkaa u dhigannay oo u doorannay inay dalka ka noqdaan madaxdii dalka hoggaaminaysay inay noqdaan wayna wadaan wayna hoggaamiyeen si macbay noo wadaan ama beela ha ahaato ama xukuumad ha ahaato ama xusbiya ha ahaatee dhexdhexaadis wanaagsan ayay inagu wadaan waxaan leedahay nin baa yidhi gardabeed guguuba nacaye sidii aynu u doorannay guurtidaa ee u qorshaynay ha ahaadaan ha la daayo shaarka yaan la qabsan waanay ku mahadsan yihiin hadda guurtidu madaxweynaha qudha umay kordhin baarlamaankiina way kordhiyeen cabdiraxmaan cirre waa loo kordhiyey baarlamaan ahaanna waa lagu kordhiyey waxaan leedahay ha la eego kororsiimada dhan walba ka socota yaan la odhan inuun madaxweynaha loo kordhiyey mawcirra tiisa u arki waaye ama xisbigiisa u arki waaye haa 10 sannadood buu ku fadhiyaa haddee beedmaa bilaa sharci oo la daayey maantana wuxuu doonaya inuu waddankaba qallibaa dee no ma yeelaynaanu dalka raggii u soo dhintay baanu nahdee ku burburayee dadkii kaga dhinteene nin walba aabbihii iyo adeerkii iyo walaalkii ku dhintay maanta qas dambe iyo dagaal dambe iyo isqabsi dambe dalku uma jeedo meel baanaynu marnay madaxweynaha ilaahay baa inoo soo dirayoo inoo soo doorayoo waa ka cirkaa ina mariyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ha la eego waxa la qabtay iyo dalka waxa u soo kordhay iyo maalintuu qabsaday halkaynu taagnayn kumbuyuutarradii baa lagala baxay xafiisyada maantana dawladiintay leegtay waa dhisantay waxaan kaga baxayaa guurtidu aad iyo aad ba u mahadsan yihiin soomaaliyana waa mahadsan tahay shicibweynaha somalilan meel kasta ay joogaan way salaaman yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ka salaamayaa Soomaaliland meel joogan ba gudaha iyo dibadba waxaan ku hambalyeeynaa kordhinta ay gaadhay guurtigu ay u kordhisay xukuumadda maanta jirta ayaan ku hambalyeeynaa waana udub dhaxaadkii wadanka de hambalyo wanaagsan nimanka dadka qoladan Soomaaliland darkee macaaradka ana waxaan leenahay war dadka baalka soo raaca oo nabadda ka shaqeeya oo iska daaya macaaradkii waxa doorkiina waa la gaari doonaaye dawladana u hambalyeeyo wax qabadka wanaagsan ay qabatay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ahay Aamino Xuseen Maxamed ku magac dheer Aamino Waraabacade oo leh dukaanka la yiraahdo Al Afnaan ee ku yaala Shafiil anigoo saboodaya ma sha Allah golaha guurtida go'aankii ay gaadhay ay ku gaadhay wixii uu qarannimadu lahaa waan hambalyeeynaa golaha guurtida waan hambalyeeynaa اللهم صل على محمد وحنا همبلينا كله مدحوينها جمهورية الصوماليلان أحمد محمد سيلانيو إيو قولها جورتي دا أردن قولها برلمان كوردن إيو ومد الصوماليلان أردن وحن شيء يا الصوماليلان هنولاتو مدحوينها هنا شرفت لنا هنولادو حسبية دينونا هنولادان ودن كنا قول إيو قبنمو إيو هرمر أيان ورجينا إن شاء الله بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم waxaa guurtida soo saartay de Soomaaliland isku raacday waa wax xaq weeyaan wixii kale ee loogu gudbaana waa sharci darro والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته brother السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا waxaan ku aad iyo aad ugu faraxsanahay odayaasheeda iyo guurtideedu hadalka isku raaceen ee fiican madaxweynahayga lagu kordhiyay ilaahayna inta ay khayrka kastaba ha ugu daro ma sha Allah jamhuuriyadda Axmed Maxamed Siilaanyo aad iyo aad baan u hambalyeynaa in loo kordhiyo muddada madaxweynenimada guurtiduna xaq iyo si wanaagsan bay ugu dhigtay hadalkaas oo soo saartay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بايدي السلام يا دمان جمهورية الصوماليلاند مقاعيق عديد فرح حاج أحمد waxaan ku noolay waddanka Shafiil waxa halkan ka soo jeedinaya baaq taageero ah oo aan taageerayo gudida golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hawshii wanaagsaneed ee naga farxisay ee ay dhameystireen ay u kordhiyeen golayaasha qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u taageersanahay waxaan leenahay aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh